Ganacsatada suuqa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa maanta qabtay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan tallaabadii ay isbuucii la soo dhaafay qaar ka mid ah ciidamada dambi baarista ee DCI-da ku weerareen goobo ganacsi oo xaafadda ku yaalo kuwaas oo burburiyay isla markaasina la tegay kartoono ay ku jireen caanaha daqiiqda ah ama caano boorada. Hoggaanka guddiga ganacsatada oo warbaahinta maanta la hadlay ayaa sheegay in arrintaasi aysan marnaba u dulqaadan doonin tan iyo xilligaasna ay qaadeen tallaabooyin ay ka mid tahay in kiis ay ka gudbiyaan saraakiishaas iyaga ah iyo sidoo kale dowladaba maxkamadda dalkani ay kiis geeyaan iyo in ay wada tashiyo markaasi la yeeshaan madaxda xaafadda laga soo doorto oo xildhibaanka uu ugu horeeyo. Agabka lagu iibiyo dukaamaha xaafadda ayay sheegeen in uu yahay mid ay markaasi hay-adaha dalka soo canshuureen baaritaanana lagu soo sameeyey aysan sidoo kalena haatan garanaynin sababaha keenay in la daba socdo. Waxaan ku magac dheerahay Shiine waxaan ahay u doodo xuquuqda muwaadiniinta. Maanta halkan waxaan u joognaa saa la socotaan isbuucii la soo dhaafay iyo bilihii la soo dhaafay laanta dambi baarista ee wadankan DCI-da loo yaqaano ayaa waxay bilowday ololo ay ku aruurinaysa caano booraha wax kasta oo caano ka samaysan sida cheese iyo wixii lamid ah ayadoon wax sharci u soo marin baarlamaan aan soo marsiin ama dawladda intay iclaamisay aysan oran waa contraband alaabahaas ama badeecadaas oo si sharci ah wadanka ku soo gashay dekada Mombasa intooda badan ay ka soo galeen qaarna wadanka gudihiisa wadamada dariska East African Community lagu sameeyo ayaa waxaan aragnay inay sharci darro tahay tii ayaan waxaan ugu soo baxnay inaan u istaagno ganacsatada inaan la dulmin haddii dawladda rabtay inay wax mamnuucdo wada loo soo maray iyo shuruuc loo maray ayay leedahay marka shuruucda ha soo maraan intay shuruucda ka soo marayna annagana waxaan u taaganahay inaan ganacsadeena ag istaagno garab siino awalan ba marka hore hadda tan iyo markii ugu dambeysay yimaadeen ay dukaamada jibiyeen waxaan hawsha ugu horeysan qaadnay waxay tahay inaan la kulanno xildhibaankeenni asagan uu baarlamaanka nagu matalo midda labaadna wakiil ayaan u qabanay arrinta maxkamadda ee hadda socotaa in jawaabtii maxkamaddan sugaynaa inay soo baxdo markay soo baxdana markaas kadib aan u gudbinay laamaha amniga oo hadda weerarka nagu ah marka guud ahaan arrintan caanaha waddanka dhan lagu iibiyaa shirkado waaweyn oo caana keena qaar Yurub ka yimaado oo Hindi iyo bulsho kala keena baqaaradooda waaweyn waxay ku yaalaan warshadaha meesha warshadaha ugu kulli ku yaalaan oo waddanka si sharci ku soo galaan si sharci annagana ugu soo iibsanaa Soomaalida ganacsatadeeda ayaga dibadda kama keenaan inta badan waxaa keena shirkado waaweyn oo dawladda ay diiwaan gelisay oo la aqoonsan yahay shirkado waaweyn oo wadamo caan ah ay caanaha ka yimaadaan intay aadi lahaayeen shirkadahaas waaweyn iyo baqaaradooda meesha alaabta u taal qof maskiin ah oo tafaaruq gado hal shay iyo laba shay ka soo iibsaday in dukaanka loogu yimaado taas lafteeda ayaan ka soo horjeednaa waana sharci darro waana u taagannahay mar walba waxaana muujinaynaa mar walba inay taas sharci darro tahay markay yimaadaan aan dagaal kala hortagno sida lagu dagaalami karo waa sida sharciga ah iyo inaad muujisid oo banaanka u soo baxdid fikrikaaga aad dadweynaha la wadaagtid idaacadaha iyo waxaas laga maqlo dadka ay qusaysan ay gaarto hay'adaha waxaa jira xuquuqda abinaha u dawda ayaga laftooda waa la fariisanay laftooda maxkamadda ay geeyni doonaan oo dawladda ayaa la dacweyn doonaa shakhsiyan hataa ciidamada yimid intooda badan waa aragnay magacyadoodana waa helnay si shakhsi ah ayaa ayaga laftooda dacwad ugu furi doonaa haddii Allah haddii aad ku nooshahay magaalada Nairobi ma og tahay shirkadda Faras Taxi inay macaamiisheeda siiso qiimo dhimis aad u ballaaran sidoo kale shirkadda Faras Taxi waxa ay ku soo celinaysaa 10% lacagtaada trip walba aad qaadato lacagtaasi oo ah Faras Miles waxa aad ka dhigan kartaa M-Pesa kaarka ku hadalka ama internet haddaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store